saxaafigii Soomaaliyeed Nuur Ismaaciil oo muddo 7 cisho ka hor la xiray ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeedna ay shalayto cambaarayeen codsadeenna in la soo daayo waxaan rabnaa inaan cod dheer iyo cod gaaban ku sheegno inaan ka xunnahay xariga iyo caburinta saxaafadda loo geysto waxaan rabaa inaan xuso in saxaafiyiintu maalin walba ay ururada nabadiidka ugaarsadaan hase yeeshee maanta inay xukuumaddiina xarig ugu darto waa wax laga xumaado weeyaan runtii wax laga xumaado waaye saxaafadda xor waaye dalkan waa dimuqraadi saxaafadda waxaan ka codsanaynaa iyaga naftirkooda inay ethicska saxaafadda ilaaliyaan oo aysan ku xadgudbin mas'uuliyiinta Soomaaliyeed sheegaan wixii ay arkaan laakiin xukuumadda iyo dalkan shuruuc uu leeyahay shuruucda uu leeyahayna qof lahayn karo 48 saacadood ka badan isagoon maxkamad la keenin ma jirto marka waxaan rabnaa inaan sheegno oo inaan ka xunnahay cambaarayno ugu baaqno cidda uu u xiran yahay waa isgaranayaaye inuu soo daayo oo ninkaas lawyer la siiyo familkiisa loo ogolaado xuquuqdiisa wariyanimana la dhowro adduunku hadda waad arkaysaa saxaafadii qaar baa la qalqalayay tay meel galeen wariyihii Sacuudiyaanka waan ogeynay innaguna ma nihin dalkaas kuwa noolin dalkaas xilligeedii ma joogno waxaan codsanaynaa in saxaafiga Soomaaliyeed bila shuruud la soo daayo xorriyadiisa uu helo lawyer xaq u yeesho reerkiisa iyo familkiisa loo ogolaado la tuso meesha ay ku nool yihiin waa cambaaraynayna cidii ka dambeysay intaasaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo